magacaygu waa Cabdullaahi Xuseen Kilaas warbaahinta aan ka howlgalana waa Home Cable TV. magacaygu waa Shukri Caabi Cabdi oo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan warbaahinta Shabeelle oo kamid ah warbaahinada ku yaala magaaladan. magacaygu waa Aways Muumin Xasan Aways OK waxaan ka tirsanahay warbaahinta qaranka anigoo wakiil uga ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan magaalada Marko. magacaygu waa Nuurto Maxamed Xuseen waxaan kamid ahay wariyaasha ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo waxaana ka howlgala idaacadda Warsan. magacayga waa Haashim Cumar Xasan ka howlgala raadiyo Cadaado kana yimid degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. tababarkan oo ciwaankiisu uu ahaa kobcinta habka tabinta isbeddelka cimilada iyo waliba doorka suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaan ka fahmay waxyaabo aad u fara badan. waxyaabahan ka fahmay waxaa kamid ahaa tusaale anigu isbeddelka cimilada waan ka haystay yani xog waan ka haystay laakiin ma ogeyn in ay jirto wax la yiraahdo cadaaladda isbeddelka cimilada oo ay tahay in laga cadaalad faro isbeddelka cimilada laftirkeeda arintaas oo ku timid in wadamada qaar ay siidayaan qaac aad u xoog badan kuwa qaarna aysan wax qaac siidaynin. tusaale Soomaaliya oo kale qaaca ay dunida ku baahiso waxa ama ku siidayso waxana loogu sheegay eber 6 taas oo ka dhigan waxba in aysan saameyn aysan ku lahayn haddana sida ay tahay in isbeddelka cimilada uu iyadii saameyn uu ku yeeshay marka halkaas in looga baahan yahay cadaalad ah in wadamada siidaya qaaca ugu badan dunida ay ka cadaalad falaan oo dhaqaalihii ay dib ugu soo celiyaan wadamada ay saameysay isbeddelka cimilada. qodobka kale oo ka faa'iiday waxa kamid ah in wariyaha laftirkiisu u baahan yahay badqab markuu ka shaqeynayo isbeddelka cimilada. qodobka xiga ee sidaas la mid aan ka faa'iiday waa in isla isbeddelka cimilada ay ku jirto xuquuqda bini'aadamka in laga shaqeeyo. tusaale haddii adiga oo ka shaqeynaya isbeddelka cimilada aad doonayso inaad warbixin aad tabiso wariyana aad tahay mar walbaba dhibanaha ama qofka ay dhibaatada soo gaartay ayaa mudan in codkiisa la baahiyo oo in badan la gudbiyo intii ah xogo kale oo inta ka baahsan ama dawladda aad wareysan lahayd in qofka dhibanaha ah ee saameynta ay ku yeelatay isbeddelka cimilada aad soo gudbiso. isbeddelka cimilada intaanan dabcan imaanin seminaarkan oo qaybta aan ka ahayn kaliya waxaan u aqaanay ama aan isdhahayay kaliya inay ku eg tahay roobabkoo la waayo nabaad guurka deegaanka lagu sameeyo sida dhirta oo la jaro fatahaadaha soo noqnoqda iyo abaaraha kaliya in isbeddelka cimiladu uu ku kooban yahay balse labadii maalin halkaan aan ku sugnaa waxaan bartay waxyaabo badan oo isbeddelka cimilada inuu gali karo colaadaha dhaqaalaha iyo waxyaabo badan oo xaaladaha oo xilligan dalka ka taagan dadkuna aysan fahamsanayn inay tahay dhibaato soo noqnoqotay oo la xiriirta isbeddelka cimilada haddii aanan la sameynin wacyigelinna sababi kartaa in xaaladaas ay ka sii darto. runtii waxay ii ahayd 2 maalin oo u dhiganta maalmo badan ama bilooyin badan u dhigma waxaana faa'iiday casharo fara badan oo runtii iga maqnaa aqoon kororsiyo badan aan helay taasoo runtii iga caawinaysa ama dhisaysa howlahayga shaqo iyo sidii aan u soo tabin lahaa warbixino kala duwan oo ku saabsan isbeddelka cimilada. runtii waxaan ka faa'iiday mowduucyo muhiim ah oo aan isleeyahay deegaanka ah ka timid xilligan way ka taagan yihiin sheekooyin badanna waa ka sameyn kartaan isleeyahay aan ka faa'iiday runtii si gaar ah waxaan ka faa'iiday maadaama aan ka howlgalo gobol inta badan ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan sidii aan badqab u heli lahaa waxyaabaha ugu muhiimsan hadda aan ka helay. labadii maalmood ugu dambeysay waxaa qaadanay tababar ku saabsan si guud isbeddelka cimilada waxyaabaha aan ka faa'iido waxaa kamid ah isbeddelka cimilada waxa uu yahay saameynta dadka markaasi saameeya ama sidoo kale bulshada jara dhirta xaalufinta oo kale in bani'aadamku gacantiisa uu ku sababo isbeddelka cimilada inuu qayb ka yahay bani'aadamka gacantiisa uu ku sameyn karo qaarna ay yihiin wax oo rabbaani ah oo ilaahay amarkiisa oo waxba laga qaban karin dad waxyaabaha qaarna waxaa waaye bani'aadamka gacantiisa ku sameeya sida xaalufinta in geedaha la jaro oo kale marka waxyaabo badan aan ka faa'iidnay sidoo kale waxaa kamid ah cadaaladda cimilada oo kale ani cimilo si guud ah u kasay laakiin in cadaaladda cimilada wadamo qaar ay cadaalad u baahan yihiin waxaasi moogeen
soo marka waxyaabo badan aan ka faa'iiday ka mid tahay sida sheekooyinka la xiriira isbeddelka cimilada sida loo sameeyo oo kale waxyaabo badan oo aan hadda soo koobi karin ayaa ka fahmay oo ka bartay muddadii tababarka uu socday. waxaan bartay in isbeddelka cimilada uu yahay wax rabaaniya oo marka koowaad si rabaaniya u dhaca laakiin bulshada ay door ku leeyihiin. tusaalooyin haddaan sheego, dadku qashinay gubaan, falkoonooyinaa qarxa, waxaa jiro waxa la yidhaha gubato oo mararka qaar dhirta ah, dhirtiyaa la jaraa, gaadiidaa la isticmaalaa inta badan. waxyaabahaasoo dhan waxay keenaan oo aan ku barta tababarkan inay door ku leeyihiin isbeddelka cimilada. waxaa jira waxa la yidhaha hawada iyo isbeddelka cimilada, dadku waa isku qaldaan laakiin tababarkaana uga faa'iidaystay inay kala duwan yihiin. isbeddelka cimilada waxaa la yidhaha isbeddelka cimilada waxaa la dhahaa wax muddo socday 10 sano ka badan oo kale. waxaa lagu saleyn karaa inay tahay isbeddelka cimilada. hawadoo kale marka haddii kuleel yar yimaado ma ahan in laga hadlayo isbeddelka cimilada. haddii roob yimaado ma ahan in lagu saleeyo isbeddelka cimilada. astaamo iyo jiid waqti dheer ay u baahan tahay in lagu saleeyo. waxaan kaloo bartay markii ay roobab da'aan ama dhibaatooyin ay dhacaan sida bulshada ama dadka wax gaareen aan ula macaamilayo. tusaale, haddii roob da'o oo roob badan da'o oo guryihii ku fatahmo oo in dadkii barakacaan ay timaado, waxaan tababarkan ku bartay oo aan uga faa'iidaystay inaan muhiimadda siiyo dadka barakacay, dadka dhibka gaaray, inaan u nuglaado, ka warqabo, ayaga aan muhiimadda siiyo. halka awal markii hore inta aan tababarkan qaadan aan fahamsanayn oo laga yaabo inaan maamulka oo kale inta wareysto aan dadkii dhibku gaaray iyo dadkii barakacay aan la kulmin aan iska tagi jiray. mawduucyo fara badan aan ka helay oo runtii aan isleeyahay aan hore u malayn jirin inay xiriir leeyihiin isbeddelka cimilada. waxaa ka mid ah colaadaha inta badan dhaca oo runtii ayagana naftirkooda saameyn ku leh isbeddelka cimilada. sidoo kale sidii loogu hortegi lahaa xulaafinta dhirta warbixino kala duwan sidii dadka loogu diyaarin lahaa iyo sidoo kale sidii barakacayaasha ayagana loogu diyaarin lahaa warbixino kala duwan oo ayagana door weyn ay ku leedahay dadka markay soo barakacaan oo kale isbeddelka cimilada saameyn ay ku leedahay. sidoo kale naftirkiisa isbeddelka cimilada wuxuu u baahan yahay cadaalad oo aan ka bartay taas ma ogeyn in isbeddelka naftirkiisa cadaalad uu u baahan yahay. annaga kaliya inaan u malaynaynin bini aadan ahaan cadaalad inaan u baahannahay laakiin waxay muujinaysaa aqoon oo iga maqneed oo iisoo kororto waay. marka waan rajeynaa markaa deegaanadayda ku laabto inaan soo diyaariyo barnaamijyo wax ku ool ah oo wax badan ka bedeli doona xaaladaha isbeddelka cimilada ee ka dhacaya deegaanada aan joogo ee ka howlgala. sidoo kale waxaan ka faa'iiday habka loo sameeyo sheekooyinka isbeddelka cimilada oo dabcan intii aan seminaarkan qaadanayay dabcan aan faa'iiday qaabka loo sameeyo oo ka duwan sheekooyinka sida maalinlaha ah ama newska aan sida maalinlaha ah dadweynaha aan la wadaagno. in saameynta cimiladu ay tahay wax u baahan in aad looga fiirsado soorsiga ama ilaha ama warbixinta ama xogaha lala wadaagayna bulshada ay u baahan yihiin inay noqdaan kuwo waqti la geliyey si bulshada wax soo jiidasho leh wax badanna ay ka fahmi karaan oo qof walba oo lala wadaago uu fahmi karo xogta halkan ku jirta, qaabka loo diyaarinayo iyo sidoo kale in anagu haatanba aan wadno isku daya ah in anagoo ku saleynayno waxyaabihii aan ka fahnay iyo weliba aqoontii aan ka kororsanay muddadan 2 maalin ah ee seminaarku uu socday inaan ku saleyno sheekooyinka la xiriira saameynta ama dhibaatooyinka ka dhalatay isbeddelka cimilada ee xilligan ay wajahayaan dadkeena Soomaaliyeed. waxyaabihii aan ka bartay tababarkan waxay iga anfici doonaan in aan warbixino kala duwan ka sameeyo isbeddelka cimilada gaar ahaan xilliyadan hadda adag ee lagu jiro anigoo markaas tix raacayo cashiradii aan halkan ka qaatay. saacidi doonaa inaan waqti geliyo isbeddelka cimilada sida aan dadku u fahamsiin lahaa sheekooyin aan uga sameyn lahaa. waxaan filayaa in si weyn uu ii saacido maadaama sheekooyinka isbeddelka cimilada ay tahay mid dunidu ay aad ugu baraarugsan tahay sanadihii ugu dambeeyay balse Soomaaliya dabcan hadda aan si aad diiradda loo saarin in bal aan fahmo
ay ahayd muhiimadda ugu weyn ee seminaarkani aan u qaatay sidoo kalena sheekooyinkaasi aan noqdo saxafiyiinta la wadaagaya bulshada si bulshadeena Soomaaliyeed bal aan u ogeysiino khatarta ka dhalan karta isbeddelka cimilada oo in badan dhagaha ay ka maqleen dad badanna haatan haddii la weydiiyo aysan wax aqoon u lahayn xitaa ay u maleeyaan isbeddelka cimilada wax afka laga sheegay wax ay wataan dadka dabcan reer galbeedka SJS marka hore u mahad celinayaa marka labaad waxaan soo jeedinayaa tababarada noocan oo kale ah in sida anaga uga faa'iideysanay looga faa'iideeyo warbaahinta inteeda kale oo laga yaabo inay jiraan wariyaal awood u leh ama talent u leh inay soo tabiyaan warbixino noocan oo kale ah balse aan fursad aan helin in looga faa'iideeyo annagana in intan in ka badan loogu daro aqoonta si aan markaasi aan u noqono dad professional ah oo waxa ay tabinayaan aqoon rasmi ah u leh runtii waxyaabo badan oo iga saacidi doonaa heerkayga aqooneed ayuu dhisi doonaa runtii wuxuuna sidoo kale iga saacidi doonaa in deegaanka aan joogo aan ka helo sheekooyin qurux badan taasoo naftirkayga xitaa berri haddii aan soo tabiyo sheekooyinkaas aan isleeyahay meelo badan haddii ay gaaraan waad ku heli doontaa magaca iyo sharaf badan aad ku heli doontaa aan isleeyahay runtii waxyaabo ugu muhiimsan taas waxaan leeyahay halkaa kasii wada tababarka iyo tareedinada iyo aqoonta kororsiga aad siinaysaan saxafiyiinta Soomaaliyeed waa kuwo mar walba u baahan inay wax faa'iideystaan si ula falgalaan caqabad walba oo dalkeena iyo dadkeena haysata sidoo kalena aan ka waranno kaliya caqabad ma aha xitaa wanaaga horumarada iyo waliba wax walba oo talaabooyin wanaagsan oo bulshadeena iyo dalkeena uu qaaday iyo wixii u baahan in bulshada iyo waliba maamulada jira la tuso si loo soxo waxaan kaloo tala ahaan soo jeedin lahaa inay sii laba jibaaraan tababarada noocan oo kale ay bixinayaan inay sii laba jibaaraan waxaa jira wariyaal fara badan oo u baahan fursadaha noocan inay helaan si gaar ah gobolka Shabeellaha Hoose degmooyin fara badan oo gobolka waxaa jooga wariyaal kala duwan waxaan jeclaan lahaa in si toos ah wariyaashaas ayagana laga qayb geliyo tababarada noocan oo kale si ay aqoontooda u dhismato bulshadana waxyaabo wax ku ool ah ay ugu soo gudbiyaan